haweenka gobolka Karkaar ayaa si weyn uga soo horjeedsaday xarig iyo musaafiriin magaalada Kismaayo loogu geystay cuqaal iyo waliba ismo waxayna ugu baaqeen maamulka Jubba inay ka raali galiyaan dadkii ay dhibaatadaasi u geysteen warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Qardho waxaa nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire gurmadka iyo orodka gacaaleyadii tolnimo gargaarkii lacagta gabdhihii dharkooda gaday godbaad ku rideen raggii guurtida u ahaa oo waa gafteen oo abahaalkeenin ooma gudin garan weyday wixii gaarido ahaa waxayna dareemin daanihii siyaasadeed oo raggii doortay bay debin u qolayaan waxay u dabaldegahayaan kuwii dayacaa haweenka gobolka Karkaar ayaa walaac ka muujiyay xariga iyo musaafiriinta loo geystay Suldaan Maxamuud Geelle Cumar caaqil Bile Siciid iyo Dictor Sayid Cabdiqaadir Xuseen oo wali ku xiran xabsiga magaalada Kismaayo caaqilka lagu gafay oo la xiray lagula diriray oo loo quuri waayay oo banaanka la soo dhigay oo la soo tuuray sidii naag la furay aad baan ugu xuma waxaan la hadlaynaa Jubbaland aan garan weyday way isu ka sheegayna suldaanada iyada nimanka yaga xirxireys muuqatay gabdhihii ooyay waxa ka damayn doonta farxad faanoole fara kama qodna waxa way waa janjeersatay gabdhow ma quban baan leenahay meesha waa la jiraa wax garad iyo madax iyo aqoon-yahanba weynoo jira Jubbaland dawlad goboleedka Jubbaland dadkaas oo si xaq darro ah ama dulmiya ama ciqaab ah lagu xirxiray iyagoo aan wax dambiye lahayn iyagoo kamid dadka degan deegaanka iyagoo kamid dadkii wax ka dhistay dawladda Jubbaland iyagoo dad ku dhashay kuna koray kuna weynaaday kuna dhaqan kuna shaqaysta degmada Kismaayo oo lagu xiray si xaq darro ah oo dulmiya isima kamid haween baa kamid oo cuqayl baa kamid odayaal baa kamid nabadoonnaa kamid dadkaas waa in lagu sii daasi shuruud la'aan kow dagaalo waa ka dhexdhaceen Soomaaliya laakiin Maxamuud Geelle ka hor shakhsi Soomaaliya oo Soomaaliya inta laga musaafiriyay meel kale loo musaafir Soomaaliya gudaheeda Maxamuud Geelle ka hor ma aysan dhixin halkan waa goobta uu ka dhacay kulanka ay isugu yimaadeen haweenka gobolka Karkaar dhammaan haweenka goobta ku sugnaa ayaa muujiyay inay ka xuyeen xariga iyo musaafiriinta loo geystay salaadiinta iyagoona Jubbaland ka codsaday inay waxgaradka dib u siiyaan xorriyadooda sidoo kale waxay ugu baaqeen madaxda Jubbaland inay dib ugu soo ceshaan Suldaan Maxamuud Geelle Cumar deegaankiisa ugu dambeyntii kulanka ayaa waxa laga soo saaray baaq u dhignaa sida tan qodobka koowaad waa in si shuruud la'aan uu maamulka Jubbaland ku sii daaya caaqil Cabdulaahi Bile Siciid iyo Idil Cabdiqaadir Xuseen si xaq darro ah ugu xiran magaalada Kismaayo qodobka labaad waa in maamulka Jubbaland raali gelin buuxda ka bixiyo musaafiriinta suldaanka guud ee beesha harti Jubbooyinka Suldaan Maxamuud Geelle Cumar iyo xariga loo geystay ismada si degdeg ah loogu soo cesho meeshii laga musaafiriyay in maamulka Jubbaland uu joojiyo caqabad ku noqoshada caleema saarka suldaanka guud ee beesha harti ee Jubbooyinka Suldaan Maxamuud Geelle in maamulka Jubbaland uu ka daayo ismada iyo waxgaradka beesha harti Jubbooyinka falalka qalafsan ee isugu jira musaafiriin xarig iyo cagajugleyn joogto ah ugu dambeyntii waxaa haweenka harti ee Puntland ee gobolka Karkaar ugu baaqayaan siyaasiyiinta ismada waxgaradka aqoon-yahanada inay arintaas gabdhaha dhammaan inay arintaas galaan oo door shariif ka qaataan Maxamuud Nadiif Shire magaalada Qardho Telefishinka Somali Channel